Assalaamu calaykum asxaabta. Halkan waxaynu ka sii wadaynaa koorsadeenii. Maanta cashirka aan qaadan doono waxaa loo yaqaanaa basic configuration, oo ah inaan saxno settingka iyo journal iyo dhammaan waxyaabaha uu u baahan yahay audiogeena. So firstly, waa inaan set up gareynaa general configurationka oo accounting systemkeenu u yeelan doono. Maxaa ka mid ah sida accounting periodka, xilli xisaabaadka, fiscal yearka, lacagta oo main currency-ga, cash and bank journals, iyo dhammaan settingyo badan oo aan sixi doono. So accounting periodka saa u saxdid waxaa mari doontaa waxaad tegi doontaa accounting appka, then accounting dashboard, then periodka adaa dooran doona. Charts of accountingka ama akoonada oo yacni isticmaalaya kambanigaadana waxaa lagu saxaa oo cashirkii shalay aan kusoo shaqeynay in accounting app aad tagtid, then configuration aad tagtid, then charts of accounting aad tagtid oo akoonka aad rabtid aad kusoo dirtid, akoonka aad rabtidna aad ka deleted. Waxaa ku xiga cashirkan fiscal yearka ama xilli xisaabaadka, yacni xisaab xirka xilliga uu dhacayo. Kambaniga xilliga aad bilowday ma January-a sanadka bishiisa bisha koowaad miya, February-a ma March-a. Midda xigta waxaa waaye currency-ga ama lacagta aad isticmaalaysa, haddii waddankaada lacagtiisa aad isticmaalaysid iyo haddii aad USD isticmaalaysid. Marka ugu dambeysa waxaa waaye cash and bank journal. Cashirka ugu dambeeya waxaa waaye in aan journaling sameyno dhammaan akoonada iyo akoon walba iyo akoonkiisa inaan isku xirno, si lacagta hadhow looga gooyo markii lacag soo dhaceysana ay isaga ugu soo dhacdo. So meeshaan saa u fahantid waxaa waaye cash on hand-iga aad soo samaysay waxaad ku xiri doontaa cash on hand-iga akoonkaada. Marka lacag walba oo haddaad sidan sameynin, akoon lacag ay ka baxaysana ma jirto, akoon lacag ay soo geli kartana ma jirto. Inventory valuation oo ah badeecada waxaad ku xiri doontaa akoonka inventory aad soo samaysay. Salaam Bank waxaad ku xiri doontaa Salaam Bank, Premier Bank Premier Bank, Dahabshiil. So marka aan isla aragno qaabka ay noqonayso. So waxaa imaataa database-kaadii oo database-ka akoonka ku sameynayni, then accounting aad tagaysaa, then loading uu sameynaya, then configuration aad tagaysaa, then setting. So setting-kan waa muhiim inta aadan yacni wax dhan aadan sameynin inaad setting-ka iska saxdid. Haddii transaction uu kaa dhaco, setting-kan dib lagama sixi karo. So meesha ugu horeysa aad sixin waxaa waaye fiscal location-ka oo akoonkeena uu ku base garaysan yahay. Meeshan generic charts of accounting aa ku ahaato. Haddii USA ay ku tahay ama United Nation iska bedel waxaa ku bedeshaa generic chart of accounting. Meeshan haddaad isticmaalaysid lacagaha fiat iyo waxaas 5% iyo marka wax iibinaysid haddaad wax saaraysid waa ku dari kartaa. Anaga hadda uma baahnin. Haddii aad markaa wax soo gadanayso lagu canshuurana waa saari kartaa. Kuwaas waa iska tirtiri doontaa. Then meeshan ay ku qoran tahay United States hadda waxaa ka dhigi doontaa meesha aad anaga hadda Soomaaliya joognaa. Soomaaliya ka dhiganaynaa. Soomaaliya markaa ka dhigano meeshan lacagta Soomaaliga waa ka bedeli doonaa. USD ayaan ka dhigi doonaa. USD. Then meeshan waxaa jigta saari doonaa sales receipt. Then meeshan waxaa jigta saari doonaa unit of measurement-iga oo halbeegga cabirka ah oo sell iyo price lagu cabiro, sell iyo purchase lagu cabiro. Then meeshan digitization-ka bank digitalize automatic waaye, vendor-kana automatic ku aado, kanna customer-kana automatic lah ku aado. Meeshan bank assessment, internal liquidity transfer. Lacag markaa yacni meesha ay kusoo marayso waa transaction, kanna midka laga jarayo waaye. So meeshan waa meesha customer haddii discount la sameynayo waxaa discount-kaas ka jirtaa sales discount oo ah customer haddaa discount sameyno akoonka ka goysi. Anaga markaa wax soo gadanaynana haddii discount loo sameeyo purchase discount akoonka ka goysi waa kaas. Tan waxaa waaye income akoonkeena waa product sale, expense-igana waxaa waaye cost of goods sold. Cost of goods sold. Meeshan waxbaa ka bedelin main currency. Meeshan current liability waxaa ka dhigtaa unearned. Unearned hadduu abuuran yahay unearned waa inaan soo abuurnaa. Unearned nooma abuurno waa inaan soo abuurnaa. Unearned ama current liability hadda ku dhaafno. Laakiin unearned oo current liability inaan ka dhigno waa meeshaas. Inta cash discount u dhaaf. Meeshan waa marka inventory-ga meesha ugu muhiimsan waaye. Meeshan
periodic at close ma la rabo, waxaa lagaa rabaa pre-virtual at invoice. Mar kasta oo aan invoice la sameeyo, inventory-ga hore in laga dalaco. Invoice cusub hadduu soo dhaco, inventory-ga hore in laga dalaco. Meeshan waa manual, manualkeeda u dhaaf. Inta standard price waa average cost. Intana waxaa ka dhigtaa meeshan stock valuation akoonkii inventory-ga aa soo abuureyn. Akoonkii inventory-ga aa soo abuureyn inay gelisid waay. Inventory akoonkana wax ku xiraysaa kaas. Inventory-ga ku xiraysaa. Then meeshan fiscal year-ka jegta saar. Adi sida kuu tahay hadda ninkan December ay u tahay. December 31 markii la gaaro xisaab xir waa inuu sameeyaa. Adi marka bisha harita ka dhigin kartaas. Nahad sidana ku dhaafeynaa. Then intaa markaa sameysid waxaa leenahay save. Waxaa sameynay qaybtii basic configuration-kii. Waxaa noo dhiman journaling-kii ama inaad yani lacagihii hadda aan soo sameynay inaa wixii aan journaling ku sameyno aad yani akoomadii inaan isku xirno. So journaling waa kuwan intaan haysataa. Adi waxaa lagaa rabaa kuwa cusub inaa abuurtid oo ah cash iyo kuwii Salaam Bank iyo wixii inaa isku xirtid. Hadda fiiri meeshan inventory valuation waa inaa ku xirtaa akoonkan loo yaqaano inventory. Inventory inaa ku xirtid waay. Waa ku xiraysaa marka inventory valuation iyo inventory waa isku xiran yihiin. Waxa kasta oo inventory valuation soo galo waxay gali doonaan inventory-na way saameyn doonaan. So akoonka koowaad aan sameynayno waxaa loo yaqaanaa cash on hand. Cash on hand waxaa ku xiri doonaa akoonkeenii noo sameysnaa oo loo yaqaanay cash on hand. So type-ka meeshan type ku dhufo banki dooro. Banki markaad dooratid bank suspendigan ku dhufo cash on hand ku xir. Incoming payment-iga tag. Lacagta markay soo galayso waxay soo gali doontaa cash on hand. Lacag kastoona soo gasho cash on hand-igan akoonkan ku rid. Lacag kasta oo cash on hand ka baxaysana akoonkan ka jar. Akoonkan ka jar. So journal entry-ga waxaa ku xiri doontaa cash on hand. Income-ka waxaa ku xiri doontaa cash on hand. Outcome-kana cash on hand. Advanced-kan kuma quseeyo iska dhaaf. Save dheh. New dheh. Akoonka labaad waxaa waaye Salaam Bank. Salaam Bank. Akoonka ku xiraysid waxaa waaye bank. Bank ku xir. So bank dooro. Journal entry ku dhufo. Salaam Bank. Incoming ka tag. Salaam Bank. Outcome ka tag. Salaam Bank. Sidaa haddaad sameynin hadhow akoonkan Salaam Bank haddii aad lacag ku shubtid lacag lagama jari karo lacagna ma soo gali karto. So lacagtii soo gasho waa inay akoonkan ku dhacdaa. Lacagta ka baxaysana waa inay akoonkaas ku dhacdaa. So waa save garaynaynaa. Ka save garaysid waxaa leedahay new. Waxaa kaloo abuurnay dahabshiil akoon la dhahayo isna. Dahabshiil Bank. Dhammaan akoonadii lacagta ay ka go'eysay oo dhan ayaa soo taxayna. Bank. Okay, inta waxaa ku qortaa dahabshiil waa kana. Incoming-ka. Outcome-ka. Dahabshiil. Then akoonka ugu dambeeya waxaa waaye Premier Bank. Akoonka ugu dambeeya. Then waxaa ku dhufataa meeshan bank. Then incoming-ka waxaa ka dhigtaa Premier. Premier ka dhig. Premier Bank. Then Premier Bank. Save garay marka. Journal entries ku soo laabo. Dhammaan akoonada ay lacagta ka go'eysay dhan cash on hand, Salaam Bank, dahabshiil, Premier. Akoon kale aad samaysa xataa waa lagaa rabaa. Meeshan akoonkan banki ay ku qoran tahay oo journal entry-giisa tag. Meeshan ka daa. Save garay.
okay, okay. Salaam bangi Soomaa. Igidaleyd wuu naqasaa hadhow salaam bangi 2 akoon ay ka go'i doontaa. So intaan waaye inta saxaya akoomadan marka aa xisaab fadhiisinta sameynaysid hadhow akoon aa lacag ku shubtay hadhow lacag kama go'eyso. Hadda inventory valuation iyo inventory-gaada iskuma xirnaan doonaan. Cash on hand-iga cash-kan iskuma xirnaan doonaan. Hadhow hadii lacag macnaa casharaanta markii customerska iyo fundraiska markaa alaab soo gadatid iyo lacag markaa celinaysid iyo lacag markaa bixinaysid akoonka lacagta ka bixinaysa ma ka go'i doonto. Marka qaabkaasaa loo saxaa journal-ka. Then waxaa noogu xigi doonto inaan yacni sameyno journal entries 3 oo cusub oo xisaab fadhiisin ah. Shirkadda waxay soo gadatay oo dhan iyo waxay yacni dadka lacagta ku darsadeen oo dhan manualkeeda inaan fadhiisino. Then casharka 3aad casharka ku xiga ayaan ku sharxi doonaa insha Allah. Waa ku mahadsantahay daawashada.